waxyaabaha buuggan hadda intaan isha marinayay aniga si gaara ka farxi ahaan ii soo jiitay waxaa ka mid ah waayihii dambe waxaan u maleynayaa feminist waxa la dhahaa hawada naga qabsaday hablo yaryaro waxaa soo baxay dagaal cir iyo dhul cid ay kula jiraan aadan garanaynin oo isdhiririnta iyo maaragtay marin habaabinta iyo xaqa iyo xuquuqda ay raadinayaan oo aanan garanayn meel ay u doonayaan in yacni ay badanaa social media haystaan taana runtii waxa ay runtii aan isleeyahay hadda buugga intaan isha marinayay sii xoojinaysaa waxaa qayb ka ah in yacni xuquuqda islaamka uu siiyey gabdhaha muslimaadka ah guud ahaan islaamka oo dhan si gaara dumarka xaqa ilaahay siiyey ma garanayo cid kale oo laga raadinayo ama cid kale oo loo doonayo inay jirto marka intaa dabcan gabdhaha muslimaadka ay fahmaan waxyaabaha buugga runtii intaan hadda isha marinayay aan arkay iyo xuquuqda dabcan islaamka uu siiyey dumarka inay si gaara gabdhuhuna aad usii bartaan ay muhiim tahay oo xaq baa rag baa wax naga dhacaya rag baa waxaa la tegay lagu mashquulsan yahay in la iska daayo oo gabar walba haddii ayada diinteeda dhaqankeeda iyo fahanto waajibaadka saaran taas inay dabcan dumarku fahmaan oo ay dabcan wax badan maaragtay iska xiijiyaan ayaan rajaynayaa intaa kadibna isma lihi dagaal ragga inuu nagala dhexeeyo sababtoo ah ragguba sida ayagaba annaga noogula umayba ayagana annaga noogula umay marka dagaal maba jiri kara inaan heshiino oon gacmaha isqabsano oon meel kasoo wada toosno oon wax badan qaybsano ayay ku qurux badan tahay marka dagaalka uun inta khilaafaadka la xidhiidha ama waxyaabaha la isku qabta ha noqdo laakiin dagaalka kale ee si guud u dhexeeya inuu halkaa ku baabao ayaan rajaynaya mawduuca labaad ee aniga si gaara runtii ii xiise geliyey waxa weeye faa'iidooyinka guurka iskaabuladoo dhan waxaan u malaynaya qodobkaas oo anfacaya sababtoo ah yani inta ilaahay u calfa ee waqtigoodii waayahooda ku sumay ee ilaahay nolol siiyey way ogyihiin ayaga maa cidda looga sheekeynayo faa'iidada guurka dadka dhex taagan maaha laakiin kuwa ay ka maqan tahay ama aanan fahan ka haysanin ama aanan yani xogogaal u ahayn ama dhegta uun ka maqla guurka faa'iiduu leeyahay waxaan isleeyahay wax badan hadday akhristaan qayb ay ka tahay faa'iidooyinka guurka haddaan wax ka xuso waxaa qayb ka ah dee si gaara rag oo kale markaan qishir siiyo wiil kasta gurigiisa markuu kasoo tooso kuwa weli guryaha hooyada jooga ama la garab taaganya maaha kuwa iskaabuladan si gaara usii taabanayaaye nin kasta markuu guriga subaxii ka tago uu kusoo laabto casirkii ama habeenkii macmuustiisa meesha uga tago ugu imaanayaa waa waxa ugu dhow sariirtii asagoo sideeda u rafaadsan u imaanayaa inta uu maqan yahay cid dheh xabiibi soo xaro iyo iisoo dhaqso iyo soo dadaal ma jirto waa qof beelaha oo banaankaas ku maqan si guudna waxaa la yidhahdaa markii xataa ii sheegay reeruhu ay duceysanayaan oo kale waxaa la yidhahdaa dadka reeraha le si gaara maaragtay dhegta loogu hayo waxaa la dhaha war reer hebel cadka fiican ha loo dhiga ama reer hebel qoyskaas wax loo geeyo laakiin iskaabulada cidda ma xasuusato marka nolosha qoyska ama nolosha guurka runtii waa nolol aan isleeyahay aad bay u qurux badan tahay oo yani faa'iidooyin badan baa ku jira marka in la isku bogaadiyo oo maaragtay kaalin weyn laga qaato oo yani la isku xilqaamo aad ay muhiim u tahay waxaa laga yaabaa sidaa daayay guddoomiyihii uu ka dhawaajiyaba in soomaalida dhibka ugu wanaysta waxa waaye qofka haddaa kala hadasho wax muhiim u ah noloshiisa kow adoo kaa bilaaba horta asaga reer ma leeyahay iyo ayada reer ma leedahay waxaan loo joogana ku meeraystaa si guud waxaa fiican haddii qofka walaalkaa ay wax faa'iido leh uu kuu sheegayo inta faa'iidada leh ee ku anfacaysa adiga inaad ka qaadato oo noloshiisa kale inaad u duceyso unbaad leedahay inaad daba gasho malid waa mahadsantihin garab wanaagsan